بسم الله الرحمن الرحيم بروفيسور أحمد إسماعيل سمطر oo idin kala soo hadlaya magaaladii Boorama xafiiska dhexe ee ururka Hilaac oo ku leeyahay gobolka Awdal dadkii reer Somaliland meel ay joogaanba waxaan u soo dirayaa salaan iyada oo barito oo Arbaca ah doorashadii muddada badan la sugayay ee loo soo dadaalayay ee loo tartamayay inay barita dhici doonto ayaan horta idin ogeysiinaya idinkuna waad u diyaarteen doorashadaasu waxay noqonaysaa mid taariikhda gasha barito si nabadgelyo ku jirto oo aynu ixtiraamayno gees ilaa gees Somaliland oo aynu wadankeena sharafkiisa ilaalinayno waa inay doorashadaasi u dhacdo adduunyada oo dhan baa ina soo wada eegaysa waxay markaati ka noqon doontaa doorashadaas inagoo nidaamka iyo nabadgelyada ilaalinayna iyo runta ilaalinayna isku dul qaadanayna markay tiradaas u dhamaato mid adduunyadu ay ku saxdo Somaliland inaynu nahay dad meel qaangaar soo gaaray markay noqoto dimuqraadinimada hankeenuna korbu u gici doona marka reer Somaliland dhammaantood waxaan ku guubaabinayaa doorashada layna daawanaya adduunyada daawanayso si qurux badan oo nabadgelyo ku jirto oo nidaam ku jiro inaynu u galno oo aynu u sugno markaa natiijada iyo tiradu markay soo baxdo taasi waa reer Somaliland ta kale ugu daray reer Somaliland waxa weeye ururkii Hilaac in badan ayaa dadku reer Somaliland ay lahaayeen waa inaynu helno urur xisbi noqda oo si wanaajiya quruxda Somaliland ra'yiga caynkaasna waa mid aanu aad u jeclaanahay hadii aanu nahay dadkii reer Somaliland khaasatan gobolada galbeedka Gabiley Awdal iyo Salal laakiin anu taa waxaan doonayaa inaan in yar saxo idigoo iga raaliya ma aha quruxun waxaan anigu qabaa Hilaac iyo galbeedku iyo intiina kale aan ogahay inaad codka bixin doontaan ee ku nool Burco iyo Togdheer Berbera iyo Saaxil Ceerigaabo iyo Sanaag waxaan ogahay in aad idinkana maskaxda idinkaga jirto sida Somaliland loo sii qurxinayo loo sii wanaajinayo laakiin waxaan leenahay anagu haddaanu nahay reer Hilaac maaha uun qurxis amba milixayn maaha way ka weyn tahay runtu intaa anagu waxaan qabnaa inay tahay vitamiinkii Somaliland ay ku caafimaadisay inay tahay afka Ingiriiska protein baa la yidhaahdaa proteinkuna waa vitamiinka ugu waaweyn ee jirka iyo lafaha wax walba caafimaadkooda kor u soo qaada Somaliland iyo dadkeygii waxaan ka filaynaa inay taa nala fahmaan oo ururkii Hilaac barito markay tagaan goobaha laga codeynayo sanaaduuqda codka lagu ridayo inay taa xusuusnaadaan anana waxaanu ku ballan qaadanaa hadii aanu nahay dadkii ururka Hilaac ku jiray oo ballaaran ilaa Ceerigaabo ilaa Looyacado in hadii aadna siisaan kalsoonida oo aanu ka mid noqono saddexda xisbi ee guuleysta waxaanu ka shaqayn doonaa inay tahay wixii ballankaanu idinku qaadnay bari hore oo ay ugu horeeyaan 6 qodob ee ah wadajirka iyo nabadgelyada iyo is-ogolaashaha iyo wada lahaanshaha Somaliland inay tahay number 1 priority waxaan ugu xigaa waxa weeye arrintii ku saabsanayd dhaqaale dhis dadkeenu aad bay faqiir u yihiin noloshuna way adag tahay wana adkayd 30 sanadood ee ugu dambeeyay inkastoo wax badan aynu soo qabsanay laakiin dhaqaalaha in kor loo soo qaado si dhalinyaradii ay ugu kalsoonadaan mustaqbalku inuu shaqo oo siin doono oo inuu dhisno xubnihii dhaqaalaha lagu dhisay economic growth lagu dhisay iyo sidii loo qaybin lahaa wixii inoo soo kordha dhaqaale dhis tasaddexaad waxa weeye arrintii ku saabsanayd caafimaadkana diiwaad idinkuna ila ogtihiin halkaad ka qiyaas qaadanaysaa waa biyaha oo qudha dadkeenii inay helaan biyo ay cabaan oo nadiif ah baadiyaha haday joogaan iyo daabiyada haday joogaan iyo magaalooyinka waaweyn haday joogaan maanta waxaan boqolkiiba 25 27 ya biyo nadiif ah
انت كله amba waa dameerkii oo usoo dhaamiya amba waa booyad wax la mid ah marka caafimaadkii haweenka iyo caruurta oo in badani markay uur kale yihiin gabdhuhu iyo ilmuhu ay isku dhintaan oo adduunyada halka ugu horeysa amba talabaad ee ugu liidata markay noqoto caafimaadka hablaha iyo caruurta iyo umusha waxay in wax ka qabano talaalka in wax la qabto arrimahaas waxa ku xiga waa arintii waxbarashada jaamacada fara badan ayaa wadankan laga abuuray iskuuladii dhexe kuwii sare kuwii hoose intuba way bateen waana khayr alxamdulillah laakiin tayadooda in kor loo soo qaado ilaa waanu u dhaarsanahay taas wax badan meel baanu dhignay kow iyo laba iyo saddex la oran karo oo ugu horeyso af Soomaaligii iyo af Ingiriisigii iyo xisaabtii iyo afkii Carabiga ahaa oo ku xiga intaasu inay noqdaan waxa caruurta lagu anqarinayo uulada markay bilaabaan si ay ula tartamaan adduunyada kale iyo geeska Afrika ta ku xigta waxa weeye arintii deegaanka wadankeenani uu nabaad guuriya walana inoo sii sheegay muddo imika laga joogo 50 sanadood amba 60 sanadood ayaa la inoo soo sheegay oo la yiri reer Somaliland haddaana iska ilaalin nabad guurka ku soo socda waxay noqon doontaa wadan marka dambe dadkiisu ay ka qaxaan oo dabeecadda environment ay erido ay noqon doontaa meel kale oo qaxna ma lihin Somaliland markaas sida loo ilaalinayo ee dib loogu soo noolaynayo deegaankii waa laga maarmaan ee biyaha loo xidhayo ee geedaha loo beerayo soo aadamaydaan garan waayo haddaynu deegaanka haddaynu sidaa u soo noolayno rahmad cusub baa ina soo gali kulaylku wuu inaga yaraani xooluhu waxay cunaan bay heli dadka tourists ay noo iman laakiin wadan engegay oo siiga iyo dhagax noqday cidna oo iman mayso taana inaan ka shaqeynaan doonayna waliba magaalooyinka waaweyn ka bilaabno degdeg in geeda laga baro kun geed magaalooyinka waaweyn in laga beero barbaraha noqoto hargeysa ha noqoto boorama ha noqoto erigaaba ha noqoto laascaanood ha noqoto ilaahay wuu soo celin doonaa iyo barco magaalooyinka waaweyn mid walba kun geed inaan ka bilowno ayaanu anagu aad uga shaqeyn doonaa haddii aanu nahay reehila arinta u dambeysaayo dee aad u ballaaran oo wadnahay nagaga taala sida fallaadha waa arintii aqoonsiga iyo adduunyadu inay na siiso inoo garato xaqa waxaanu u leenahay oo ah kursiga ama jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ha noqoto amba ha noqoto Afrika iyo AU African Unionka wadajirka Afrika ha noqoto Addis Ababa ama ha noqoto jaamacadda dadka islaamku ay leeyihiin ballaaran dawladaha islaamku ay ku bahoobeen meelo badan ayaynu xaq ku leenahay inaynu soo fadhiisano oo layna arko sidii looga shaqeynta lahaa taas waa 30 sanadood ayaynu arintaas la rafanaynay sidii looga shaqeyn lahaa waa hilaac priority number 2 or 3 ayay ku jirtaa waxaanu haynaa 1 2 3 4 ya talaabo oo strategy oo la qaadi kara caawa la qaadi karo oo hore loo arko 6 qodob waa balankeena waxa inta soo raacaya anagoo goor walba diyaar u ah inaanu isha ku hayno danta guud ee ummadii Soomaaliland danta guud inaan goor walba isha ku hayno oo ururku yahay urur ay wada leeyihiin reer Soomaaliland inkastoo oo xundurtiisu ay ka timid galbeed ay ka timid iyo magaalada Boorame ee aan idin kala hadlay sidaasaynu isku ognahay ilaahay haynoo dib yareeyo doorashada barita dhacaysa inakuna ilaahayna wayna daawanayay aan la nimaadno waajibka ina saaran oo ah nabadgeliyo ixtiraam tiradaas oo markay dhacdo la sugo lagu qanco sida loo tiriyo wixii ka soo baxa laakiin waxaan ku soo gabagabeynaa haddaanu nahay reehila waan idinku kalsoonahay ya aad baanu idinku kalsoonahay waxaanu aad ugu kalsoonahay inaadna fahamteen oo risaalada aanu sidnay eenu idin soo dirnay eenu dhulka la marnay bari ilaa galbeed inaad fahamteen oo laabtiina gashay dhuuxiina gashay wadnihiina gashay maskaxdiina gashay de waxaan sugnaa waxa weeye idinka oo sidaa noo saxa ya maalinta bari ah oo ilaa oo 7 number 7 aad sidaa noogu saxdaan ayaanu idinka rajaynaynaa laakiin hilaac waa inaad goor walba xusuusnaataan inaanu nahay urur madax bannaan oo noqonayno xisbi madax bannaan
oo cidna aanay ka haysan karin danta reer Somalilandna si gooniya isha ugu hayo goor walba lixda qodob ay idin soo sheegana ay marxaati ka yihiin halkaas aynu ku xisaabtami doona ilaahay ha idin la jiro ilaahay ha isku keensimo waa inoo doorashada barita ah iyo wixii ka soo baxay natiijadeed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh